Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Learn Somali channel. I am Marian Osman, and today I would like to share with you a new book we have released called La Baro Somaliga Bilan, Learn Somali with Bilan. This is a bilingual book, Somali and English. As we all know, there are so many children who are struggling to learn the language, and so many parents looking for some resources to help the kids learn Somali. And we are trying to do our part by creating some more content to help out. And this is the new addition to our family of books. It's called La Baro Somaliga Bilan. It's a bilingual book, Somali and English. And today I will show you some pages of the book, and hopefully at the end we'll give you more information of where you can order the book for yourself. So the first page of the book starts with the words that will be used in the book. It's about 50 words, and this is some sort of a glossary of the meaning, more of like a dictionary where you can look at the words. If you don't understand what it means, it will give you like a general idea of what the word means. Two pages that are across each other also are translation of each other. So if you are learning Somali and you know English, you will look at the English and then you will learn the Somali. And if you speak English and if you speak Somali and you're learning the English language, then you can this can be also a good resource for you. It's a black and white side, and then the Somali side is colored. So this is for the kids to get their crayons and coloring pencils to color and be as creative as they can be. It's a small phrase book, small questions and answers. It's not like story and stuff. This is more of a second step. The first book we wrote was about the alphabets and different words. And this is more of a sentence book. So this could be your second step if you already know the steps, the alphabets. And this can be your second book. So Bilan lives in Somalia. She lives with her parents. Her dad is an engineer. Her mom teaches math and science. Her grandma owns a restaurant. Her grandpa is a doctor. She has a little brother. When she wakes up in the morning, she brushes. She does the wudu. She prays. She eats and says Alhamdulillah. She gets ready for school. She goes to school and she study and write and read stuff in school, different activities. And she has hobbies. She likes to walk and run. She likes to watch educational stuff, I guess. She also likes to relax, some time to relax after all the running and walking around. Somewhere in the description I will share where you can order the book. If you live in Minneapolis, by the beginning of next month, like February, you will be able to get the book from Akmal Bookstore in Mall 24. I will also leave the details, and you can also, the book is mainly in Amazon. So if you live in US, UK, Canada, somewhere where Amazon is available, you can order your copy today. And hopefully it will arrive at your destination, and you will hopefully send me a feedback in the comment section, what you like about the book, what you would love to change. And now I will go to the Somali introduction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada Learn Somali channel. Aniga waxa weeye Marian Osman. Waxaan ahay qoraaga buugan. Buugan waxa weeye buugii labaad. Buugii hore alphabetska iyo wuxuu ahaa erey yaryar. Buugan waxa weeye sentenceyo yaryar oo kii hore buu wax yar ka koreeyaa. Waxaana la yiraahdaa buugga La Baro Somaliga Bilan. Wuxuu ku saabsan yahay gabar yar oo su'aalo la weydiinayo oo magaceeda Bilan la yiraahdo, oo noo sheegaysa intay jirto, meeshay degan tahay, qaraabadeeda,
iyo waxa iskuulka ku barato buugga gadaashiisa saan buu eegyahay waxaa ku qoran magaca buugga oo af Ingiriis ah buugga gudihiisa rabaa inaan idin tuso hadda buugga gudihiisa dhinacan waxa weeye color waana Soomaali dhinacan waxa weeye black and white waana af Ingiriis dhinacan waxa ugu talagalnay in waa sawirkan oo kale exactly laakiin ilmuhu inuu asagu colorat iyo intuu isticmaalo wax uu jecel yahay iyo midabku uu asagu jecel yahay inuu ka dhigto ciyaalku aad bay u jecel yihiin wax sawiraan oo wax kala gareeyaan marka fursadaasna waa siinay farwaaweyn waxa ku qoran ilmaha yarka ah hopefully wax tiro badan oo ay ku wareerayaan kama aan dhigin waxyaalo iska simple ah maadaama iska buug uu iska yahay oo ilmaha yarka ah marka da'deeda la weydiinaya da'deeda sheegaysa intay sano jirto nicknames bay leedahay waxa la yiraahdaa gabadhan bilan isku filan waa gabar isku filan oo iyada arrimaheeda dhan dabarata aabaheed iyo hooyadeed iyo awowgeed waxay qabtaan bay noo sheegaysaa waxay ku nooshahay Soomaaliya meel ka mid ah waxay samaysaa waagi markuu baryo way cadeeyataa way weesaysataa way tukataa alxamdu intay ka dhiragtaa quraac alxamdulillah way tiraahdaa kadibna waxay isku diyaarisaa iskoolka iskooley waaye waxay aadaa iskoolka waxay sii raacdaa bas bay sii raacdaa hadhow iskoolkay tagtaa casharo kala duwan bay qaadataa waxaan ku iraahdaa akhriskay jeceshahay waa qosolkeeda baxaya buug aad u xiiseynaysa akhrinaysaa waxay jeceshahay inay wax qorto warqado tiro badan baa hadda meel kasta saa u yaacsan si wax u qoraysay waxaan maleynaa way daashay marka waa fahantay waxaan ka wado waxaan rabaa inaan buug gudihiisa idin tuso waxyaalaha kala duwan laga helayo saa u wada ognahayba dadkan qurbaha jooga aniga hadda ciyaalkayga waxay ka mid yihiin baa u maleynaa ciyaalka Soomaaliga aad u adag yahay markii loo fiiriyo dadka dibadda jooga markaas ay u kaliftay inaan buugaag iyo xas qorqoro oo af Soomaaliga lagu this content dadka isticmaalaan dad badan ku taamay in ciyaalkeedu luqadda Soomaaliga baraan u bilaabaan maadaama dadka dibadda jira ay u badan yihiin inay ku dhex jiraan dad luqado kale ku hadla Soomaaliga marka dad badan uu ku adkaaday dad yaqaan waa jiraan dadkaasna waxa weeye ma sha Allah Ilaahay u ziyaadiyo dad waxa jira hadda baranaya marka dadkaas u anfacaya buuga qofkii yaqaanana duro inuu support gareeyo buuga u dalban karaa waan uga mahad celinaynaa marka waa kaas buuga all the way wuxuu soconayaa 85 page waaye waana buug deesaa u jeeday inuu qurux meerana marka buugan hadii aad Amazon isticmaashid meesha Amazon meesha laga isticmaalo Amazonka Mareykanka Canada UK waa ka dalban kartaa buugan الله مستعان هدي Minneapolis degan tahay maktabada Akmal suuqa 24ka ba insha Allah taala dhawaan February bilowgeeda insha Allah xajeynina in laga heli karo telefoonka iyo sida meesha lagu tago waa idin la soo socodsiineynaa waana idin kaga mahad celinaynaa buugii hore oo aan qornay 2 sano ka hor waa idin kaga mahad celinaynaa asaga inaa naga dalbateen خير بدنا إني رجينا قفك سومالي كأديها إله أفضايا قفكي برنا إله أفضايا وإنك جمه علنينا وحنا إنك رجينا إن شاء الله إن بوجا دربتان لو feedback نقص سيسان وهي أسلذهم وكخلدينهن وجعلنا هنا أوجانه بين آدم بان هاي قف أو perfect أملهن قف كستو حباك خلدنا مركا خلدك إن الإشياء جوا كو ونكون رأسنا هاي wixii ka jeclaataan buugana waa ii soo sheegi kartaan ayadana waan idinkaga mahad celinayaa marka waa idinku dheereeyay waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu